قروحو هرمرا شقلا هرمود كي أجر لي مركي تعا هجنوجو هادان هوشيتنا هجو هجنوجو هادان هوشيتنا هجو يهرجوجو هودو هول كركي وحقبل ليو runtii wuxuu ahaa waxa weeye wakiilka gaarka ah ee ama u qaabilsanaha Somaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan World Bank Mr. Haig Riddle oo safar rasmi ah ku yimid Somaliland wuxuu la kulmay wasiirka maaliyadda halkan oo noogu yimid oo waxa uu eegay mashruucan ayna la wadaan World Bank dib u qaabaynta shaqaalaha oo saameynaya wasaaradda badan oo dib maartay hawshooda iyo dib u qaabaynta structure-kooda qaab dhismeedkooda iyo tayeynta shaqaalaha guud ahaan marka waxaanu ka wada hadalnay mashruucaas iyo barnaamijka kulamaan iyo wixii dadaal la sameeyay wixii muddada u hadhay shaqooyinka la qabanayo waxyaalaha kale baahiyaadka ee shaqaalaha muhiima in lagu hayo maarta shaqada ama kor loo qaado daryeelkooda iyo tayada shaqadaba marka si fiican baan isu fahamnay waanu waqti dheerna waanu halkan baan ku wada qaadanay waxa kale oo aad sidana ugu horgalay sida uu shaqeeyo maxadka tababarka shaqaalaha oo inaga go'an tahay inaan xoojino tayadiisa iyo aqoontiisa iyo maxaan ku mashruuca World Bank ka kabayo in kor loo qaado la gaarsiiyo inuu noqdo u bixin karayo heerka ballaaran heerka imka uu bixiyo digriyada uu bixiyo marka waxyaalahaas uu ku saabsanaa kulankaasi way isfaham iyo wada shaqeyn si joogtooda iyo ballaarin mustaqbalka wixii waareynimo mashruucan laga bartay lagu sii ballaariyo in maartay wixii ka dambeeyo muddada dhamaadkiisana waa isla eegnay waxyaalaha xaggayga aan u aragnay inay muhiim u yihiin shaqada iyo shaqaalahana waa kala hadalay oo daraasadii makaan wadno doonana World Bank inuu kaalintiisa mugala qaato ha noqoto pensionka hawlgabka ha noqoto inuu shaqaaluhu mustaqbalka helaan adeeg caafimaad oo jaban ha noqoto maxaan ku raahdaa sidii waxyaalaha kale ee nolosha taabanaya looga kaabi lahaa shaqaalaha sida maartay inay suurtagalnimada in loo sameeyo mustaqbalka guriga jaban oo shaqaalaha dawladdu ay galaan waxyaalahaas oo dhammaan inta badan u bandhignay marka runtii meel baanaanu isla dhignay waqti kasta ha qaadateen ay gacan nagu siiyaan arrimahaas u dhawaan mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh قروحو هرمرا